magaalada Gaarisa ayaa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga Ciidul Fitriga oo la filayo inay ku beegan tahay maalmaha horteena ah waxaana saxmad dad ah ka jirta goobaha laga dukaamaysto ee ku yaalo magaalada Gaarisa haday ahaan lahayd dukaamaha dharka kabaha dahabka iyo waliba saacadaha haddaba goor dhaweyto oo aan booqday goobaha ay dadka ka dukaamaysanayaan ayaa waxaan halkaasi kula kulmay dad iyagu u soo dukaamaysi tagay bartamaha magaalada adeer adigu magaca ماجد هذا في قمر بالمانت سأوصل دوين سعيد محمد تربطة أنا قدرت كوا هيا كوا هذا سجن هيا مسوقات مسوي لي اللي هو هذا أوكي لكن كلام قربان قدرت شلبا هيا في قمر عيد Faisa Ali waxay ka mid tahay ganacsatada dahabka ee magaalada Gaarisa waxaan ugu horeyntii weydiiyay waxyaabaha dadka dukaamaysanaya oo ay sida aadka ah u iibsadaan Faiso iga waran bal maanta dadka sida ay shopping u sameynayaan sida ciida ay u soo dhaweynayaan ciida aad bay dadku soo dhaweynayaan shacabkan oo aad u tiro badan yahay inkasta oo sida hore suuqa ahaan jiray hadda ay ahayn oo suuqa qaybateen maalmaha ciida dadku dahabka iyo dharka ay aad u iibsadaan maalmaha ciida dharka aad u iibsadaan dharka kabaha ilmaha labiskooda dadka waaweyn aad wax uma gataan laakiin dahabka oo kaleeto way gataan adii wixii marka ayada ah lacag fiican la siiyo dadku isku mid ileen ma ahayn hadda waxaad arkaysaa suuqa dahabka waxoogaa saxmad inay ka jirto oo dad aad u tiro badan ay taagan yihiin marka dadkan iyaga dhammaan ma dahab bay wada doonayaan haweenka waaweyn ahaa dahabkay gataan inta badan maaragtay lacagta loo siiyo dharka inay ku gataan ay dahabka ku iibsadaan gabdhaha kuma jiraan iyaga miya haweenka waaweyn unbaa gataa dahab gabdhaha isku mid ma kuwana labiskay ka dambeeyaan kuwana dahabkay ka dambeeyaan marka isku mid ma noqon karaan aad gabdhaha inta badan dharka iibsadaan iyo kabaha iyo labiska fashionka Faiso marka la eego ciidii hore iyo ciidan midkeebaa wuxuu ka dhaqdhaqaaqo ganacsiga uu yara sareeba is oran leeyahay adigu markaad eegto hadda suuqa way bateen waagii hore suuqa way yaraayeen ciidan iyo ciidda hore ciidda hore anaga xageen nooga fiicnay waayo maxaa sababay suuqa yara hadda suuq badan baa la furay suuqa Gaaris way ku badanayaan wali way socdaan marka suuqii hadda uu batay dadkan way kala go'ayaan suuqa qaas ay qaybsamayaan marka suuqadan haatan soo kordhay aad sheegayso ma suuqa dahabka mise waa suuqa dharka dahab iyo dhar labadaba maxaa sababay oo haatan dadku ay suuqyada u soo badinayaan magaalada shacabkeeda soo batay magaaladan way sii dhismaysaa way sii weynaanaysaa dadkeeda wuu sii furfurmayaa sii reer magaaloobaya taasaa keentay suuq inay yeeltaa la arkay dadkan guriga galay shacabka tirada badan ee ka daawanayo Dalwa Media Network had ugu baaqi lahayd ciid wanaagsan Maxamed Xuseen Xasan oo waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya siiyay Dalwa Media Network ayaa sheegay in ganacsiga maalmahan uu aad u wanaagsan yahay iyadoo dadku ay ku jiraan u diyaar garowga Ciidul Fitriga magacaawla Maxamed Xuseen Xasan baaligaada waxaan ka mid ahay ganacsatada reer Gaarisa marka haddaan ka hadlo sidaan u arko ciidan ganacsiga alxamdulillah aad u wacan yahay walow ciid laba beri saddex beri meelahaas oo kale aan rajaynayo inay naga xigaan ganacsigan aad u wacan yahay alxamdulillah rabbil caalamiin maxamed maxaa ka ganacsataa adigu saacadaha dahabka iyo burkaatiyada noocyadooda kala duwan baan ka ganacsanaa marka waxayna yihiin xilligeeda ugu fiican suuqooda baa hadda ku jirnaa waan gartay saddexdooda marka la eego keebaa ugu wanaagsan ayaa saddex leedahay xagga ganacsiga ama dhaqdhaqaaqiisu uu wanaagsan yahay maalmaha ciida waa saacadaha iyo burkaatiga aad ugu wanaagsan dahabka dabcan dadka dacwadu way ku ciidayaan markii soonka laga baxan bay gadanayaan iyo ciidaha marka laga baxo saacadaha iyo burkaatiga ayaa aad ugu wanaagsan markaas waan gartay bal hadda labada ciidood tan iyo ciidii hore markaad fiiriso xagga ganacsiga kee la oran karo wuu wanaagsan yahay ciida ramadaanka marka laga baxay ayuu aad u wanaagsan yahay maxaa yeelay dadka Soomaalidu waxay yiraahdaan ciida caraf waa ciid weyn laakiin ciidan baad moodaa inay aad u danayaan oo maartay aad isku aruriyaan oo wax isku taraan oo wax kala iibsadaan waan gartay ciidul adxaagi hore iyo ciidan marka la fiiriyo
bal ii waran bal kee dhaqdhaqaaqa xagga dhaqdhaqaaqa ku wanaagsan yahay dabcan kan baa aad u wanaagsan ganacsiga kan baa aad u wanaagsan inkastoo ganacsiga qaybo kala duwan uu leeyahay mar walba wax ka socdaan raashinka xilligiisa laga soo baxay hadda waxaa aad u socda dharka iyo saacadaha iyo baraafuunta iyo shopping intiisa kala socda aad u socda dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in suuqyadii ay soo bateen hadday noqon lahayd xagga suuqyada dahabka ama bulukaatiga ama saacadaha ama dharka marka waxay leeyihiin marka ganacsiga hadda waxaa hoos ayuu u yara dhacay maadaama ay suuqyo badan soo baxayaan marka arrintaasi adigu maxaad ka oran lahayd waa run oo taas waa meesha way ku jirtaa waa run suuqyada aad bay u soo farbateen markii loo eego 3 sanado oo la soo dhaafay markii loo eego aad bay u soo farbateen midda kale dadka waxaad moodaa xilli waxa ku soo wajahan doorasho campaign baa ku soo wajahan dadka ummadda intooda fara badan maadaama wadanka dawladda ay maartay adag ka dhisan tahay dadka doorashii waxaas isku diyaarinayaan dadka qaarkiisa ciidaha ciid kale waxa ku soo wajahan doorasho madaxweyne ayaa ku soo wajahan dadka mashquulkaas fara badan uu saameynaya dadweynaha tirada badan ee ka daawanayo Danwa Media Network xaq ugu baaqi lahayd xagga ciidda waxaan ugu baaqi lahay maartay muslimiinta meel walba joogaan ciid wanaagsan ay ku ciidaan maartay isku marxabiyaan ay sacadiyaan ilaahay dartiisa maadaama bil soon ay ku jirno meesha ugu wanaagsan aan barayno inay isku wanaagsan maartay sacafiyaan waxaan leeyahay meel walba joogtaan ciid wanaagsan gaar ahaan dadka af Soomaaliya ku hadla meel walba joogaan sidoo kale Faadumo Maxamed oo ka mid ah ganacsatada waxyaabaha dumarka ay isku qurxiyaan ayaa iiga warantay sida ay dadku ugu diyaar garoobayaan iyo heerka uu ganacsiga marayo dhowrkan bari ee ugu dambeeyo bisha Ramadaan Faadumo marka ku soo dhawow Danwa Media Network okay Faadumo haddii bal aad ka warbixiso ciidan maanta iyo qaabka dadka ay ugu diyaar garoobayaan waa sidee haddii aan kaaga warramo ciidan